فيلم شيك ميديا برودكشن.
maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya laga dhisayo oo caawad muddo aan leeyahay sida rag badan ugu soo sheegeen taageeradiisa ayaa meesha ku qabanayna marka dhowr arrimood baa in la fiiriyo way fiican tahay oo waayahan dambe waxaa la wadaa dhaqanka Soomaalida marka ay eegto arrimaha soconaya waxaa lagu eegayaa in ay u badan tahay dhanka caatifada oo dadka caatifadooda iska kacsan tahay hadba wixii cusub oo yimaada ayaad arkaysaa in dadku ay kacayaan bulshadu aad iyo aad u kacayaan laakiin ay meesha ka maqan tahay in waxa caqli iyo miisaan dhaba lagu eego iyo wuxuu sida u socdaan iyo wadada ay ku socdaan iyo miraha laga filan karayo waxa ay yihiin waxaad moodaa in laga hormaray dabaaldegu iyo taageeradu iyo farxaddu waxay fiican tahay marka natiijada fiican ay soo baxdo oo wuxuu ay si nidaam sax ah ku dhismaan nidaamkii ay ku dhismeenna ay ku shaqeeyaan miro wanaagsan oo dhaxalgalana meesha uu ka muuqdo taageerada aad muujida macna yeelanaysa markastaba waxaan ugu badan markii wax la magacaabo leeyahay waxaas baa la qabanaya ama hebel baa darajada loo magacaabay ama hebel baa waxaan noqday waxaa arkaysa ummadu yaacayso carabo la ordayso oranaysa hebel baan taageeraya waxaad moodaa in la kala saari layahay عاطفدي iyo waxa aqliga leeyahay in la kala saaro marka arinta aan dalay waxa weeye wadanka waxa la yiri waxa lagu maamulayaa nidaam la yiraahdo federaali waagi hore waxaan muhaajirnay dawlad markazi oo meel looga taliya leh oo meel u jeeda leh وقابك وشقين إذا لا فهمي وقعانك إذا ما سوف صباحي لا قراني عين نقيني من دبر أنا سوى الشقين كل يانكو ذلك عنك ويان يانا هين أدنى وحاب على قولي كدن بيني مركا وحنا لوك يعني لبعتدي مركا على سلو وقبخه أيام بدل بعد قومي والدولة النمدي الصومالية شرفت الدولة السعودية حنو ملايين يا دولة دبها لا نسيد وعاد وشقي سيد محاولات في اسكتيجا إنك سيد الهدي دولة دي عطلة نسيد ودنك جيبوتي أو كانك كعقاص صلاة حسن أيها لطعامن كريا دولة مكة صواب حوالي نظام نطقع عباران وقصوا دورتين كتير ماشي دولة سماع هاي الفدرالية من ما هو طبعا حاله نسيا لبا قبل هي وحكة بدن يا إسرائيل كلا وحين أنت عكير دولة مركزية معمولة سواء ما هي طليانية نمك ساعة فدرال ورك أوديجية والدستور كأقرية
وصعب أولانية قرب بالله يا وحيد واسيدان قولنا وإن كود فدرال كأساس المقدارين ودل كأساس المقدار وايد فدرال كهدوي هاي ودك الأمة مولية وحي هاي أفتل وقاض شعب صومالي أي أيكو أقولادان مركا كبعدنا ويما ضرن اللي انتو اعتماد وحق قاضي يعلق لك الشرعي منا ما يجفتي وحا لك يعني إمبريات كينيا انت لك هنا ليوضن فدرالي مركا سانا لهم بالله كيس كوضقات حقا ودقات والمحوية فدرالي بالمدربة مقابل با ميل وفصل الأمية قاعدة قولك استعيب ماشي تولد هيريه بكنت وحيلي أنك إنك من تحت سيدي يتوقع الدول وقرين قابك ليسوق درجة لكن حقيقي سيدي يتوقع الدول واحد حتى وحي دكي من الجمهورية وها قبيلك أي كده آخر حتى سيدي دم فدرالك إنك سوسا حلال يعني حلال وحمل جيدا adduunka waxa la yaqaanaa dawladuhu ku hormareero ku dhaqmaa waxa weeye dastuurka ay leeyihiin dadka la weydiiyo oo afti loo qaado oo dadku ma yaamaha ogolaadaan wax lagu qaadi wax lagu weydiiyo toona laguma markaas lagu leeyahay dalka federaal madaxweynuhu waa soo istaagay dawladda federaalka warka امتى قرمات فدرال الوطني قرمات وجود الوطني قرمات شعب أفتل يقاعد منا مجلس مركب حياتي هاي وواحد شنا الكسار رضيت عن أبيت أمر اللقاء مديد والوقوع قصبية دوش على الكسار قلت أنا وقالنا نظامك عن حاول صعبين إلى صعب خطوة ميدان وواحد معاصر ومالك استعدوكتين دولك استوصوا جمهورية الصومالية كاملة سيدا أسباب مدح الإسكولية جدا ونور مالك استوى ليسو جيداني مركي دلكي الأمور بريد تمين درتي أي واحد نلود هذه هذا واحد لو مصيب القرآن الأولى مركي سألي هذا مدى على مصيب ووجد ما شاسي مركي وعرين أبي حقيقة قفت دنقنية دلكي سيزدكي سوء دنقنية أرين وكحا مصدوم مركان ليهاي دولة الصومالية دلكي كمدلية فدرال وي عود كيس ملي ويدي عليه إنا نقولها ينكا وراديك ملي ويدي قفل ويدي ولا أركان مدهن فجوه دمتك فجوه مدحك waxaan noocaas aan haystaa waxa kaaga yaabka badan markaan hoos u soo noqdo kuwa dhismay oo hadda ayagu dhisteen oo qaabka ay ku dhismeen aad ogtihiin oo nin walba ka dheregsan yahay dowladdii waxay maartay xoogaa inay tiraahdo wasaan sax maaha iyo annaga magacsiinayna waxaa la gaashaanka qolada muruqa leh وحوجا حوجا سبيدا دولة دواء فريسان إذا ما حد شيء يتابع دواء فريسان ما عليك تروح تأكل دواء فريسان قلنا كده الرسول كده الرسول وروح قرات حلال يعني في هاي مسؤول هذا دكتور عمر أو كلمة سامة هذا الكيسبو أذن ما ممكن هذا لو وضع الورثة ما قبلتك قبلها بدو يقلقدود كجهل مركز وحرم أنا ذكر اليوم وحنا كعسنا الاستياشة وتشرفت أمان تشرفت له إن صعبك يغيرنا يتغير دين أموجسا وجيت حفلة دريسي تبور قداش يقرن وحاويا التغيره تدالنا الورثة يوم ما قبل ذا إن شاء الله برنامج كنتو ينصع وحققت تلفون سوقي دونا رجع ما هو جميع شهرموت هو مامل كاسي مغضى كبده عبد حسن عوالة قبدي يو هذا إكستم مسؤولين كلنا يكسرون الجلد قد تلفون كي نقل غير قادم دونا سعب كي تجارد واحد إن الموجسان سي سوماليا نقطه أما ودلك نقطة دل ونكسر ونبدا ودمانتين أينو ونقطة دلك اللي هو مركنا وحن جعلها
soo dhaweeyo shakhsigii ama aan dhihi karo fikradii ka dambeysay in xafladani la soo qabanqaabiyo dabcan fikradan howlwadano badan baa ka dambeeyeen balse waxaa codkooda ku hadli doonaa ama sidii hawshan ay u soo socotay inooga warbixin doonaa maxamed cismaan buure sacabka iyo soo dhaweyntu waa xagiina warahmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin martida sharafta leh ka soo qaybgasha caawa waxaan idinku mahadcelinayaa xafladan aad quruxda meeran aad u samayseen waa maasistiin ka qaybgalka aad ka soo qaybgasheen anoo ku hadlaya magaca guddiga su'aalkii ii sheegay hadda waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo dhammaan dadka ka soo wada soo shaqeeya in xafladan suurta gasho caawa waxaa weeyaan waxaa ka mid ah yaasiin waxaa ka mid ah biidan oo reer Danhaag oo dhan Khadiijo Zubayda Zara iyo dhammaan kale haweenada kale oo kasoo qayb galay xafladan oo soo diyaar gareeyay waxaan ugu mahadcelinayaa maxamed cilmi waxaan ugu mahadcelinayaa maxamed fiyaad waxaan ugu mahadcelinayaa ninka la yiraahdo maxamed cismaan maxamed xasan وعلى علي استيلا iyo nin hadda laga maqano ingiriiska jira cabdikariin la foolay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan waxaan ka codsanayaa sacab gaar ah inaad siisaan xafladan suurtagalkeeda dhammaan guddiga halkaas fadhiyo inaad sacab gaar samaysaan waayo haddaad fiirisid taariikh ahaan anuun caatifi ahaan u hadlaynin waxaa jirta ka soo qaata 25 reer baa degan gobolkaas haddii la fiirsho tirada cadadka degan haddii xamar laga reebo 3 milyan iyo bar xamar degan maa 2 milyan bar degan maa waxa degan galgaduud maxaa la mudug galgaduud waxa degan haddii la qiyaaso 2 milyan iyo bar haddaan beed iska dhaaf marka waxa weeyaan haddii la yiraahdo gobolkaas la kala qaybinayo anigu horta shakhsi ahaanteeda dhammaan guddiga magaca maanta xafladan soo qabanqaabiyay waxaan leenahay waxa weeyaan diidnay inaan gumaysi dambe galno gumaysi cusub dooni mayno mid labaad walaalayaal midaan xasuusiyo annaka qolo lagu soo duusho ma leh oo hub noo qaadatay oo gobolkeena qaadatay ma jirto laakiin waxaa lagu xisaabtama waa qalin iyo af baa la rabaa in gumaysi cusub lagu qaado oo gobolkeena la wareejiyo la yidhaahdo hal gobol iyo barbaa waxay taagantaa labadaas gobol marka waxaan leeyahay walaalayaal waxaan rabnaa inaan muujino taageero kaamila oo aan leenahay waxyaalaha ka socda dowladda Soomaaliya xasan sheekh kama mas'uul ah waan u jeednaa waxa weeyaan waa loo wada dhamaa shalay cabdiweli markuu siixay go'aanka ka soo baxay labada gobol gacantiisa ku siixay maanta wuxuu leeyahay waa gobol iyo bar diidnayadu gumaysi cusub midda labaad waxaa xaqiiqa ah in ay ra'yi caalamka adduunka ka indha qarsadeen waxyaalaha ka jira Soomaaliya oo hal dheg wax ka maqlayaan waxaan leeyahay odayaasha mutacalimiinta oo gobolkaas ka soo jeeda koonfurta inay u dhaqaaqaan inay ka qanciyaan ra'yi caalamka waxyaalaha hadda ay ku dhaqmayaan inaysan wax macquul ahayn aan la yeeli karin aan soconaynin baan leeyahay walaalayaal waxaan halkee ku soo koobaya dad badan way iga dambeyn doonaan hadalkaas xibintiisa waxaan leenahay gumaysi cusub ma doonayno waxaan rabnaa xaqayna iyo xaqa gobolada salkoo dhan wassalaamu calaykum dabcan waxaa inoogu soo socdo oo dhawaan inoogu soo foolle oo isla qadka taleefonka ka soo geli doona gudoomiyaha gobolka galgaduud waa xuseen cali wehliye cirfo balse intaan aan gudagelin waxaan rabaa inaan mikrofoonka marka ku soo dhaweeyo cismaan maxamed farax oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolada galgaduud iyo mudug ee caanka ka dhex ah bulshada degan waddanka Holland cismaan ku soo dhawow aniga waxaan la yidhaahdaa magacayga Cismaan Maxamed waxaan matalayaa jaaliyadda Xuman iyo Xaab gobolada dhexe wax badan rabo inaan ku daro intii dadkii iga horreeyay yidhaahdeen waxaan rabaa kaliya in aan muujiyo hadda ka horna mar aan saas u muujin inaan ku daro
in loo baahan yahay maantay qof kasta oo wax garan kara ama wax fahmi kara in uu loo baahan yahay central state wax la yiraahdo in la sameeyo Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa qof kasta inuu dhinaca wanaagsan oo ka fiiriyo wax kasta oo loo baahan yahay uu tabartiisa iyo maskaxdiisa iyo dhaqaalihiisa u geliyo wixii wanaag ku jiro anigu wax kale tooma istaagin waxaan rabaa inaan ku gubaabiyo dadka jooga halkan noocay doonaan ha noqdaan iyo kuwa maqan iyo kuwa la maqli doona in ay muhiim tahay in gobollada dhexe looga baahan yahay in la isku daro dalkuna uu baahan yahay dadkuna uu baahan yahay annaguna aan u baahannahay muhiimadda kaliya ay leedahayna waxaan u malaynayaa caawo inaanay u baahnayn inaan fasiro inaan xabad u sheego qof kasta oo wax fahmi kara qof kasta oo caqligiisa raba inuu isticmaalo inuu fahmi karo muhiimadda ay leedahay ma raacinayo dastuurka siyaasadda dowladda aan uma gelayo laakiin waxaan u jeedaa inay muhiim aad u wanaagsan tahay 2 iyo 3 gobol in la isku daro si ay isu kaashadaan dhaqaale ahaan maskax ahaan deegaan ahaan intaba waxaan rajaynayaa inaan qof gooniya oo looga baahan yahay maanta inuu u oleeleeyo aanu jirin waxaan rabaa inaan ku daro qof kasta waxaa looga baahan yahay maanta inuu gobol istaago 2 ilaa 3 gobol in la isku daro in ay wanaagsan tahay Dr. Umar ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay siyaasaduna runtii waa dhib badan tahay maalinba meel maalinba dhinac maalinba weji leedahay ciddii wax saxiixday iyo ciddii ka hadashay iyo ciddii qaabka u dhigtay intaba waxaa u malaynayaa inaysan wax weyn aysan ka bedeli karin laakiin loo baahan yahay in dadku ay fahmaan horta maxay tahay danta ku jirtaa in gobollada dhexe loo sameeyo maamul iyagu leeyihiin waxaan aaminsanahay in ay yihiin gobolka ugu weyn hadday ka labaadba noqon gobollada dalka marka loo eego ilaa iyo gaalkacyo ilaa beledweyne ilaa iyo aadaya baan ilaa cadala inta ka dhaxaysa waxaan rajaynaa marka oo bad leh oo beri leh oo xoolo leh oo beero leh wax walba haysta in marka dadkoodii ama ay ka shaqayn kari waayaan ama ay fahmi waayaan in ay u istaagaan runtii ceeb weynay ku tahay dhibaato weynayna ku tahay bulshada degtana waxaa looga baahan yahay in ay u istaagaan horta ama ay fahmaan waxa la yidhaahdo horta inaad kaliga isku filan tahay inaad noolaan karto inaad jiri karto markaan saas leeyahay qofna ma gubaaminayo gooni aan laakiin waa waajibna saaran waxa alla waxa gobollada dhexe ku lug leh in ay isku meel wax u arkaan waayo waxaan kala jiidjiidanaahi ma yaalaan marka runta loo noqdo والناسين waxaan kala jijiidanahay bayaan kulli anigu aragtidayda gobolkaas wuxuu aad iyo aad muhiim ugu ah in dhaqaalihiisa la mideeyo maskaxdiisa la mideeyo يعني wax walba oo loo baahan yahay oo gobol ahaan wax tari kara in la mideeyo waxaan arkaa inay muhiim tahay cid gooni maanta ugu faa'iido ugu qabtaayna ma jirto cid khasaaro ugu qabtaayna ma jirto marka waxaan aaminsanahay in loo istaago lana fahmo walaalaha maqan iyo kuwa jooga iyo kuwa kaleba loo fasiro lana fahamsiiyo inay muhiim tahay in cid wax lagu yeelayaana aanay jirin laakiin loo baahan yahay inaan isku tashanno ilaahayna tala saaro waxaan marka xagga siyaasadda hal qodob kale yahay dowladda federaalka waxaan u malaynaa cid gooni sadbursi ku haysaa inayna jirin laakiin farsamo yar ay khaldan tahay aragtidayda waxaan raggiiga horreeyana muujiyeen caalamku inuu dalka nala maamulayo dadka nala maamulayo waxaan leeyahay marka yaanan u arkin siyaasadda internationalka ee maanta socota ee nalala maamulayo dalkeena
dalkeennii dadkeennii diinteennii in aanu carab ku bedelno oo annagu aan isqabqabsanno wax kala jiijiidanno waxaan rabaa keliya qofka noogu badan wuxuu noolaanayaa waqti yar waqtigaa yarkaana wuxuu u baahan yahay inuu nabadgelyo helo waxa uu jecel yahayna uu isagu ku dhaqaaqo waxaan anigu marka qabaa inay nabadgelyadeenu muhiim tahay inaan isku tashanno gobolkeena dhisno dadkeena dhisno tacliinta ka dhisno cilmiga diinta iyo cilmiga kaleba ka dhisno qof walbaana aan isku filaansho iyo nabadgelyaha waxaan rajaynayaa dekedaan leenahay xoolaan leenahay cid baahi maanta dad badan baa waxay aaminsan yihiin gobollada dhexe inaanay noolaan karin haddii aan banaadir jirin anu ma qabo inay taasi run tahay gobol kasta ee dalka Soomaaliya ka mid ah waa isku filan yahay mid shidaal leh mid beer leh mid xoolo leh midba wax ku wanaagsan yahay intaas marka haddii aan la midaynin dal ma jiro dad ma jiro anu kula aragtaas qaba marka waa maasad matala shacabka oo kala hanahay siyaasadana kuma jiro waxaan jeclaan lahaa marka ilaahayna noo sahlo annagoo isjecel inaan isugu imaadno shirkan ka weyn kana qaalisan qof walbaana dalkii ayuu u noqon doonaa haddii alla yidhaahdo qofka dhintana meydkiisa waa la qaadi doonaa kollay saan isleeyahay haddii alla yidhaahdo waana mahadsantihiin kollayna su-aalahooda waa noo furmi doonaa aad iyo aad u mahadsan yahay cismaan marti sharafta waxaa xusid mudan in dalkeena Soomaaliya nabadii ama magaca Soomaaliya in la helo waxa u soo halgamay dad badan waxa ka mid ahaa Sayid Cabdulla Xasan waxa ka mid ahaa Cabdullaahi Ciise oo ka mid ahaa dadkii midnimada Soomaaliya ka soo shaqeeyay gaar ahaan ka soo jeeday gobolada maanta la doonayo in maamulka laga dhiso kaasoo ka mid ah nabadeynta dalkeena Soomaaliya waxaa xusid mudan oo aan hilmaami karin in sanadkii 2012 xildhibaanadii sharafta lahaa ilaahay ha u naxariistay ee ku geeriyooday iyagoo ku mashquulsan maamulkan iyo dadaalada maanta heerkan soo gaaray xildhibaanadaas waxaa ka mid ahaa Yuusuf Manaseeraan waxaan u rajaynaynaa ilaahay naxariistii janno idinkana waxaan idinka codsanaynaa iyo xildhibaan Cabdiweli oo isna ku dhintay iyo ambassadorka Soomaaliya u qaabilsan Ethiopia Axmed Cabdisalaam dabcan ku dhawaaqay balse ujeedkeedu wuxuu yahay inaan xusno dadkii ku dhintay iyagoo ku mashquulsan dadaalada maanta laga wado in maamul loogu dhiso gobolada Mudug iyo Galgaduud barnaamijyaasha ugu cadcad dadaalada lagu samaynayo maamul goboleedka gobolada Mudug iyo Galgaduud ah marka waxaan idinka codsanaynaa hadhow qodka telefoonka haddii aynu soo gelino inaad fadlan idinkana sawaxan ka yaraysataan oo si fiican loo maqlo codkooda marka markaana waxaan idinka codsanaynaa inaad sawaxan ka yaraysaan dabcan waxyaabo badan oo qurux badan ay noo soo socdo waxaan filayaa in qaarkiina isweydiinayaan aaway heesihii aaway ciyaarihii aaway dabcan kama marna waxaa hadda goorrow liisoo sheegay inay jirto hees loogu talagalay midnimada dadka degan gobolada Mudug iyo Galgaduud oo munaasabadan awgeed loo sameeyey fanaaniintu way soo diyaarinayaan insha Allah marka khudbaduhu inoo dhamaadaan ayaan soo dhexgelin doonaa si aan khudbadaha u sii wadano waxaan markan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka shakhsi isagana ka mid ah guddigii qabanqaabada ama shakhsiyaadka dadka xaggan ka hadli doona waxaan ku soo dhaweynayaa Daahir Cali Axmed Daahir Madoobe Daahir ku soo dhawow haddaad ii ogolaatay waxaan jeclaan lahaa inaan salaamo guddiga soo qabanqaabiyey xafladan intii qiimaha maamul samaynta gobolada dhexe waxaan aniga runtii arrimaha siyaasadda iyo waxaas uma fiicnin laakiin waxaan doorbidi lahaa arrimaha samafalka iyo dadka in la kaalmeeyo oo maaragtay arrimahaasaan waqti badan ka shaqaynaya aana doorbidi lahaa waxaan rabaa marka intaas haddaan dhaafrarto dadkan gobolladan degan waa inay caddeeyaan inaysan cidna duulaan ku ahayn oo aysan rabin inay qof kale ama gobol kale ay qaataan wax uu leeyahay waa inay caddeeyaan arrintaas oo cidna duulaan kuma ahin laakiin waxaan rabnaa inaan helno maamul gobolladaasu leeyihiin arrinkaas inay ka bixiyaan si cad u sheegaan waa jeclaan lahaa waxaan kaloo rabaa
أنا وقال لي مجينا يوم مجا عدد كلا عدد نجم مكان إن الموجنا تاجر هذا أنو هينو إن معمول الله سميه قبل هذا معمول هذا جرم mahal لكن سيدا موقتا معمول صوصا إن معمول الله سميه قبل كجدود يمودو إن معمول الله سميه إن أريكاس عدينوا يو أن أريكاس إن تاجر سناي أن عدينوا أريكاس أنا إكوكيل waxaa kaloo rabaa inaan baraarujiyo dadka halkan jooga iyo dadka naga maqan oo u dhashay goboladaas ama guud ahaanba Soomaaliya run ahaantii dadka halkan jooga waa dad badan oo dhar qurxan sita oo cunto gurigooda uga soo tegay oo mid kala wata oo mid kala raba inay halkan ka cunaan oo mid kala raba inay jidka ku sii cunaan waxaad la socotaan haddaad fiirideen website-yada ama aad fiirideen telefishinada Soomaalida ka hadla in maalin kasta hooyo Soomaaliyeed iyo caruurteedii ay u dhimanayaan gaajo meeqa mar aad aragteen hooyo Soomaaliyeed iyo caruurteedii ayaa u dhintay gaajo u dhintay waddanka Soomaaliya oo aanan talaabo ka qaadin oo dhammaanteen aanan talaabo ka qaadin oo arrinkaas aanan inta u istaagno aanan wax ka qabo xaqiiqadii arrinkaas waxay u baahan tahay in la fiiriyo oo dadku ay istaageeraan si ay ku gaaraan wax fiican waxay ku gaari karaan inay dadku ayagu istaageeraan oo qofka dhibaataysan la kaalmeeyo oo dadka baahida hayso biyo la'aantu hayso oo caafimaad darradu hayso oo maaragtay dadkaas in la iskaalmeeyo haddaan la iskaalmeyn xaqiiqadii waxba lama gaarayo ama gobol laga yimaado ama Soomaaliya laga yimaado meel kasta laga yimaado waxaa loo baahan yahay xaqiiqadii in dadku istaageeraan oo samafal isu fidiyaan oo dadka hooyooyinka ay ka naxaan hooyooyinka kale wiilashu ay ka naxaan wiilasha kale dadku ay iska naxaan si ay isu kaalmeeyaan arrinkaas aad u soo jeedin lahay waxaan baraarujin lahay oo kale dadka ama goboladaas u dhashay ama gobol kale ka yimid oo Soomaaliyeed oo halkan jooga inay ka fikiraan dhulkoodii inay wax noqdo maamul maxaa la yiraahdaa maamul wuxuu tiraa annagu inaan isweydiino maamul wuxuu tiraa maanta waa ognahay maamul waxa uu taro halkaana joogtaa maxaa ammaanka aad ku joogto maxaa waay maamul jidka aad soo martay oo baabuurka uusan god ku dhicin oo uusan meel dhibaato arag oodan mugdi arag iyo maxaa sameeyay maamulaa sameeyay baabuurka baarkina dhigata banaanka muraayada uu leeyahay yaa waardiinay boolis ma aragta maya maxaa waardiinay maamulaa waardiinay iyo nidaam waxaa la rabaa marka waxaa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed baabuur haddii meel dhigto in la waardiyo maalina laga tegi karo inaan qofku intuu daa qaato ama saacad qaato uu socon karo maamul marka dadka halkan jooga maamul waxa uu taro waa yaqaaneen waxaa loo baahan marka aqoontii aad taqaaneen oo aan naqaanay inaan ka faa'iideysano oo aan ku kaalmayno dadka kale walaalaheena Soomaaliyeed oo naga dambeeya in lagu kaalmeeyo inay maamul helaan inay nidaam helaan inay iyagu maaragta xukun iyo ay kala dambeyn helaan si ay u kala nabad galaan oo iyaguna ay isu dhibin oo aysan dhibaato isugu geysan waxaa kaloo rabaa inaan xaqiiqadii guddiga maamul samaynta gobolada dhexe oo laga sameeyay magaalada Muqdisho oo inay maamulkaas soo agaagumaan oo ay ka shaqeeyaan oo ay soo hagaajiyaan oo nidaamkiisii dastuurkiisii wixiisii inay soo sameeyaan loo idmaday waxaan kula dardaarmi lahaa inay si xaq ah oo maaragtay nidaam oo ayagu ay u arkaan si cadaalad ah oo tanasul ku jiro inay u sameeyaan maamulkaas oo ay uga shaqeeyaan oo ay maaragtay si wax loo aayo oo dadku meesha degan ay u aayaan inay u sameeyaan maan aniga qof ahaan haddii la weydiiyo in maamul gobolada dhaxaylaan ma taageersan tahay ma taageersan waxaan taageersanahay in Soomaaliya maamul hesho in Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog badan ay hesho ma taageersan in gobol iyo hebel meel lagu sameeyo laakiin waxaan taageersanahay
in Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog badan oo madaxweyne leh oo nidaam leh ay hesho haddii laakiin la waayo waxaan laga maarmayn in la helo maamul gobol walba oo leeyahay oo dadkaas at least ay meel ku gaaraan waxaan kula dardaarmi lahaa xaqiiqadii dadkiina halkaan fadhiya sida aad naftiina uga naxdaan inaad uga naxdin dadka Soomaaliya ku dhibaataysan oo hadda oonka u dhimanayo oo hadda u dhimanayo cunto la'aanta waxaa laga yaabaa maanta aniga hadda laba maalin kahor dadkuna way arkeen oo malayna hooyo Soomaaliyeed iyo carruurtoodii oo gobolka Gedo ugu dhintay gaajo ugu dhintay imagine cunug aad dhashay oo waxaad haydo waxaad siido aadan u hayn seeg waxaan u arrinkaas u xanuujina cunug aad dhashay oo biyo u dhimanayo oo aad biyo aan haysan aad siido maxaa kugu soo dhici lahaa waxaa u baahan tahay marka inaad fikirto wixii kugu soo dhici lahaa inay kugu soo dhacaan waxaa laga yaabaa inteenaan hadda haddii laba euro la bixiyo inta halkaan joogto laba euro hadday bixiyaan caawa inay noolay karto boqolaal qof ay noolay karto waxaana aayad quraanana waxay qofkii qof dilo dadka dhan asoo dilo la mid yahay qofkii qof nooleeyna wuxuu la mid yahay asoo dadka dhan nooleey waxaan kula dardaarmi lahaa xataa inaan qofku ka quuso wax yar aan rabaa inaan la wadaago arrin yar oo dhacday oo si run u arko kusoo dhaweeyo gudoomiyaha jaaliyadda waddanka Poland ahna la taliyaha arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Cabdiqaadir Gabeere oo munaasabadan awgeed Poland inooga yimid Cabdiqaadir kusoo dhawow maanta murug badan oo ay qabatay waxaa ka mid ahay markaan diyaaradda saarnaa buugaan akhrinayay oo nin Polish uu qoray isagoo wareysanaya nin Kenyaati ah uu weydiinayo Soomaalidu maxay yihiin wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad wax dumiya dad aan nabad ogolayn dad dadka cuna dad baabacsan dad aan israbin sifo inta lagu tilmaamo qof xun oo dhan ayuu lagu tilmaamay nin Kenyaati ah taasu aad bay ii murugelisay qodobka labaad oon caaw u fadhino oo faraxa intaasoo qof ay isugu timid ba waxaan isweydiiyey toloma wax ay samaysteen bay caaw ku farxayaan oo ay leeyihiin mirahaasaan u haynaa mise waxna lagu qasbay oo in la sameeyo dad kaloo gacan kale ay ka qayb qaadatay oo la yidhi ilaa sameeya su-aasha isweydiiyey waxa weeye war haddii tii lagu qasbay ay sidan ugu dabaaldegayaan tay iyagu samaysan lahaayeen tolose ugu dabaaldegi lahaayeen taasna su-aalan isweydiiyey waxaan ognahay gobollada dhexe inuu yahay gobolka ugu qanisan marka aan nafteena u sheegayno inaanu ku dul fadhino uranium dhinaca kale laakiin markaad eegto waa dadka gobolka ugu fakrisan dadkoodu way ka haajireen dadkoodu ma jecla koodii wax bartay uu ka carray kii maalka lahaa Kenya iyo wuxuu maalgeliyay iyo meel kale Hargeysa iyo meel kale xaqiiqdu waxa weeye gobolkan uu Ilaahay baa u maqan cid kale u maqan ma laha intiina meesha fadhidaana nin kasta baraax ku jira dadka baaba'aya halkaas intaad ka ogtiin aad u yari waxaan ula jeedaa marka xaflad la qabto taageero la taageero waxa isweydiin leh war maxaanu ugu talagalnay ummadihii kale geesaheena way kaceen waxbay qabsadeen dowladay dhisteen guriyay dhisteen dariiqii bay hagaagsadeen war dadkeena ku baaba'aya gobolka maxaanu ugu talagalnay haddaan nahay reerka dadka qurbaha ugu maqan jawaabtaas haddaan reer Poland nahay haddaanu reer Poland nahay waxaanu qorshaynay 2016 in laga dhiso mantaqadaas wax la yiraahdo Freeport lacagteedana loo diyaariyay European Union aanu ka damaynay oo aanu ugu talagalnay Dubai inay bedesho mantaqadaas Soomaaliya ku taala ee gobolka
macnaheedu ay tahay in dadka la dejiyo ariga xoolaha ay raacanayaan laga joojiyo carruurtooda wax la baro loo dhiso mustaqbal ay ummadaha kale wax ula qaybsadaan taas 3 nin oo gobolka ka timid ayaa qabanqaabisay oo ka shaqaysay taas waqti oo guul ilaahay macnaheedu ay tahay Soomaaliya iyo gobolkaas dhexe in yar baa u maqaneen Soomaaliyay qolada dadkiina ka yimid gobolkaas oo bal ka fakara waxa aad ugu tala gasheen gobolkaas inaad gaarsiisaan dadkaana ku badbaadisaan carruurtiina mustaqbalka aanan loo talinin ay wax ka taliyaan assalaamu calaykum aad u mahadsan yahay Cabdiqaadir Gabeere markana waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka wadajir warahmatullaahi wabarakaatuh ugu horreyn waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa guddiga qabanqaabada ee diyaariyay xafladan quruxda badan ee caawa aan joogno waxaa kaloo aan halka ka salaamayaa bulshada qaybeeda kala duwan ee ugu horeyso saxaafadii madaxda meesha fadhida ururada haweenka ma koobi karo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka u soo laabto munaasabadda caawa waxaa aniga meesha iga bannaan u malaynayaa inuu inaan taageerno maamul samaynta gobollada dhexe gaar ahaan galguduud iyo mudug waxaan u malaynayaa aniga iyo saaxiibkay Gabeere waayahan waddankii aan joognay guddiyadii u xisaanaa qaybihii maamul samaynta gobollada dhexe inta badan waa la kulannay waxaana noo muuqata gobollada kor iyo hoosba dhismihiisu inuu gabagaba yahay insha allahu tacaala mar dhowna uu sidii rabo u noqon doono Soomaali waxay ku maaqdaa god iyo ninkii loo wada lama kala qariyo waxaan u malaynayaa inta meesha joogta nin walba wuxuu ka fikiraa ilmihiisii iyo qoyskiisii iyo noloshiisii waxaan jeclaan lahaa fikirka in lagu daro waddankaada muxuu ka istaahilaa waxaan u malaynayaa waxa familkaada iyo gurigaada ka istaahilaa qayb ka mida waddankaada inuu ka istaahilo dadkaada inuu ka istaahilo meeshaas gobollada dhaxaa waxay maanta u baahan tahay idinka idin baahan tahay fikir ay u baahan tahay aqoontii aan leedahay inaad geyseen u baahan tahay shilimaadka heesana ilmiina rootaysan ku aan rootigeysa in rootiga loo geeyo u baahan yihiin in inta lagu seexdo aysan noqon wixii fadhi ku dir in idaacada wax laga maqlo kaliya la yiraahdo alla ilaahay meeshaas deegaanka dadka ayaa degan waa taageerana kaliya maahane taageerada waxaa rabaa in lagu daro gacan af dhinac walba in lagu daro aniga aan idinku soo jeedina insha Allah taala waxaan idin sheegaa Soomaaliya xilliga la joogo waxa u maraysaa wixii na soo bahdilay oo ahaa qabiilka hadda wuxuu ku dambeeyay qurbo ku dambeeyay Soomaaliya qof joogo hadda qabiilka la ma arkaysato waxaan rabnaa waxyaabihii na soo dilooday in laga gudbo loo gudbo waddankii waa loo laabanayaa tolo maxaan kula laabtaa maxaa fikir oo kula laabtaa maxaa aqoon oo kula laabtaa maxaa dhaqaalo oo kula laabtaa oo dadkaas geliya runaatii aad iyo aad u mahadsantihiin inta qabanqaabisay inta ka qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdirashiid Ibraahim Maxamed oo ahaa gudoomiyaha ururka wadajirka Soomaalida markan mikrofoonka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo shakhsi caan ka dhex bulshada waddanka Holland isla markaana ah ganacsade gudoomiyihii hore Efsan Xuseen Khadiib waxaa horta aad iyo aad ugu faraxsanahay in xafladan mar hore sugeen inay caawa noo dhalatay waxaa marka hore horta ammaan u soo jeedinayaa dhammaan dhallinyaradii odayaashii hooyooyinkii xafladan ku soo dubariday nolosha waxay ka bilaabataa qof walba gurigiisa nin walbana gurigiisa inuu xaaqo oo qurxiyo waa lama huraan farxadda iyo taageeridda labadan gobol in badan ayaan sugaynay laakiin waxaan jeclahay caawa inaan isu sheegno mas-uuliyadda runta ah inay hadda taalo farxad iyo wanaagna wuxuu imaan karaa
markaan dhulkii la dhiso si hanaan loo wada shaqeeyo garbaha la iska qabsado maxaa yeelay odayaashii aqoon-yahanadii iga horreeyay siday sheegeen dhulkani waa dhul aad iyo aad u weyn qiimo badan una baahan in howl badan laga qabto marka waxaan leeyahay faanoole fari kuma qodno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khadiib markan waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo afhayeenka maamulka Khaatuma State ee dalka Soomaaliya waxaan ku soo dhaweynayaa Diiriya Abshir warahmatullahi wabarakatuh horta waxaan ka cudur daaranayaa xilka aad saartay aad baan uga cudur daaranayaa hadda waana mahadsan tahay waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee madashan quruxda badan ee lagu taageerayo maamul u sameynta gobolada dhexe ka soo qayb galay iyo soo abaabulayaasha hawsha badan iyo kartida sida uu quruxda badan ku bixiyay horta aad bay u salaaman yihiin kollay aniga magacaygu waa Diiriye gaar ahaan waxaan deganahay waddanka Belgium waxaan ahay shakhsi Soomaaliyeed kana soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn leh maamulka Khaatuma State of Somalia waxaan u malaynayaa hadda Soomaaliya maamul goboleedyadeedu aad bay u tarabateen laakiin marka Khaatuma la yiraahdo in Soomaaliya oo dhan ay idin muuqanaysa halka idinka muuqanaysa aad iyo aad baan u taageeraynaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo geyga Soomaaliyeed maamul ka samaysanaysa oo isku tashanaysa aad baan annagu u soo dhaweynaynaa waana garab taaganahay waxaanu tala bixin markastaba aanu ku bixinaa dadka Soomaaliyeed ee tashanaya inay geed hoosti ka soo bilaabaan sidaan annagu uga soo bilownay macnahaas wuxuu yahay geedka hoostiisu Soomaali weynu nahay qurbahan qariib baynu ku nahay waxaan u maleynayaa nin walba sagoo yar ama sagoo weyn buu yimaadaa laakiin dhaqanka Soomaaliyeed markay tashanayso geed hoostiida ka soo bilowdaa reer galmudug iyo galgaduudba waxaan oran lahaa war geed hoosti ka soo bilaabo oo isku tashada idinku dabadna Soomaali u taliya hadalka kuma dheeraanayo si kadiisa leeyahay yeeray markasta ummadda Soomaaliyeed waanu taageeraynaa haddaanu nahay Khaatumo haddaanu nahay shacabka midnimada jecel aad baad u mahadsantihiin guuleysta Soomaaliyeed hadday aqoonsi tahay hadday maalgashi tahay hadday mashaariic tahay hadday nabadgelyo tahay walaalayaal wax walba waxay ku xiran yihiin midow waxaan message u diraynaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolada dhexe aqoon-yahanada siyaasiyiinta inay ku garab siiyaan gogasha maanta taalla Cadaado ee lagu soo dhisayo gobolada dhexe inay ku garab siiyaan siyaasiyiin hadday xildhibaan ahaan leed hadday aqoon-yahan ahaan leed walaalayaal caqligu ha shaqeeyo kala qoqobnaan hadday faa'iido leedahay 23 sano ayaan ku soo jirnay maanta waxaa la joogaa maantii midowga oo ay gobolada dhexe midoobi lahaayeen dowladda dhexe haddaan u soo noqdo heshiiskii ay ku saxiixday magaalada Muqdisho ee mudug iyo galgaduud ahaa inay maantay mid ka soo horjeeda oo lagu kala qaybinayo ay ku saxiixdo meel kale ayadana waxaan ka sugaynaa xalkeeda in la yiraahdo gobolka mudug waa la kala qaybiyay haddii la kala qaybiyo waxba isku darsan waa 5 degmo 4 degmo waa qaybsami kartaa laakiin magaalo madaxda Kaalkacyo ayadaa laga rabaa xalkeeda inay u laabato dadka wada dega waa dad musqarri baa la degnaa maanta hadday tiraa waa kala qaybiyay ayadaa laga rabaa inay xal u keento weliba waxaa laga rabaa
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت له وحارتي فرحت وينيا إن المانتا إذا كنا سوقين قالوا كلن كان لو قد بلدقيو وذا جركة يسرع ولا ضبحه taas oo aanu arko runtii inay tahay arrin muhiim ah maxaa yeelay wadajirku wuxuu aasaas u yahay ama lafdhabar u yahay nolosha aadamaha. waxaan rabaa inaan soo koobo laba kelimood ama laba aragti inaan ka bixiyo arrintaas iyada anoo u raadinaya daliil iyo xujo. midda koowaad, diinteena islaamka iyo wanaagsan wadajirka iyo midnimada waxay ka istaagtay boos runtii aan la iloobi karin. maxaa yeelay wadajirku islaamka waa waajib islaami ah, waajib waaye. allah subxaanahu wa tacaala isaga ka hadlaya isagoo noo sheegay wadajirka wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum. ilaahay wuxuu inagula hadlayaa inaan wadajirka xoojinno bisiiqa amar ayuu ilaahay middaa inoogu sheegay si amar ah. wactasimuu ayaa la yidhi qabsada xadhigga ilaahay. haddana intaa laguma sii daynina jamiican ayaa la yidhi. qofka luqada carabiga yaqaana wuxuu garanayaa jamiican, wuxuu garanayaa kulligiin dhammaan. laakiin waxayna ka codsanaynaa maadaama aan ku jira qabaqaabayaasha, maadaama waqtigeenu soo waxaysay inaa markii dadkii ay khudbaynayeen martida ah oo wadamada kale looga yimideen inaad iyar aamustaan. teeda kale aniga waxaan ku hadlayaa magaca dadka ka soo jeeda galmudug iyo galgaduud dhammaantood anoo ku hadlaya gaar ahaan magaca magaalooyinka mudug iyo galgaduud. mudug iyo galgaduud dadka qaarkood way iska maqlaan, laakiin waxaa ka yimiday dadkii calanka Soomaaliya keenayba. waa in la xusaa. marka waa dadkii ku jira Ismaaciil, waa dadkii siyaasiyiinteenii hore, dibitaatiyaasheenii hore. marka ma aha nin oo la iska kormara keliya. marka haddaan lama soo sheegi karo culamada diinkii waaweynaaye ee Soomaaliya, saraakiisheenii waxayna marka tafadir badan u baahan tahay dadka ku soo koray qurbaha in loo sheego. aniga waxaan ka aqsaday YouTube-ka iyo internet-ka goobi. marka ma soo koobi karo. marka dadka waaweyn baa hadlaan u maleynaa, laakiin waxaan jeclaa dadkii meesha naga waaweyn in ay sheegaan micnaha uu leeyahay iyo maxay tahay galgaduud, maxay tahay galmudug, maxaa laga helaa, maxaa yaa ka yimid. marka haddii ayaga noo sheegin annaga ka barna waaye internet-ka. marka aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin. taas micnaheedu waxa waaye in generationadii naga horeeyay ay fadhiistaan, generationka cusubna inuu kursiga ka soo kaco oo u kacno waddankeeni oo gobolladeeni iyo waxayna ugu kacno. marka dadka ka yimid maaha dad yaryar kana waa taqaani cabdulaahi ciise, waa taqaani xaaji maraake, waa taqaani maxamed baare, waa taqaani dad badan baa jira, cali geedishado hor farmaajo wax ku jirna oo waqti. marka waa in ay dadka waaweyn caruurta ay baraan, waa inay dadka waaweyn ay baraan dhulka maxaa khayraad ku jiro. waayo laguma qorin annaga kumaana soo dhigan Soomaaliya iskuul. marka waa inay noo bartaan oo noo sheegtaan. taana waxaa ku dacweynaa odayaasha, maamooyinka way ku baraaraan, wayna ku gabyaan. marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. loogu talagalay mar kale haddaan ku celiyo haddii aan ku celiyo taageeridda dadaalada lagu wado in maamul loogu sameeyo deegaanada ama gobollada mudug iyo galgaduud. waxaan maraynaa qaybtii khudbadaha dhammaadkeeda. waxaan rabaa inaan carbaabo gobollada la sheegay galgaduud iyo mudug waxaa ka soo jeeda ama ku dhashay madax Soomaaliyeed oo caan ah. qaarkood ilaahay u naxariistay waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore dalka Soomaaliya, madaxweynihii hore cabdirashiid cali sharmaarke,
وحكمدها عبد الله يوسف وحكمدها مدح كلا أو بدر وحكمدها وقامي SYL حرمة دلك الصومالية احنا رئيس الوزراء وجور الصومالية وضنا عبد الله عيسى إلهي ونحرسته وحاجر هجاميال بدن وتاريخ الصومالية ساسو كله وحاجر علماء وحاجر فنانين عانا وأيكم تاعي إلهي ونحرسته فناندي قرنك حليمة خليف مقول ووضك كل بطل لما سوكوبي كرو مقع إماموسك أوليهاي أما إليهين دادك كسو جيدا قبل هذا دحل وحان دلك أن أورجينينا نبدي برواقو وحان أورجينينا دادك دقن أما دادك إمينك كو مشغول سن إني مامول ولسان قبل هذا سي إنو إلهي قلب قدس كفرو إسلامر كان مامول كفر ذي نباتوي كصوماليا دن وماهن وين ودقنهاي واتن إنت إنك أنتي وحان رجينينا إن وحكستا حلقة يقابك نبدا أي كنا معدان إلهي ذكيس وحن جعلها هنا حفلة إنه كسو قيبتا خطبتها كسو قلنا إنه برامبر إنه جيدين يسو جواهر أحمد جواهر كسو
Yes.
Yes.